asalaamu calaykum asxaabteyda qaaliga ku xiran janalkeyga cunto karinta iyo macmacaanka ee Mema Cooking and Sweeties. waa walaashiin Mema oo idin wado muuqaal cusub. fadlan haddii aad janalka cusub tahay subscribe inoo saar, haddii aad hore inoola joogtayni qaybta hoose commentiga laga arko. ha ka hilmaamin muuqaalka inaad laag ii saarto, way laagtu waxay iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro. share asxaabtaada la wadaag haddii uu muuqaal ku cajabiyo. aad iyo aad ayaad ugu mahadsan tahay daawashada muuqaalkani. kusoo dhawow ceesh iyo malaay. asxaabteeda qaaliga waxaa idiin soo diyaariyey ceesh iyo malaay aan ka sameeyey qudaar. sida ujeedaan ceeshka aad iyo aad ayuu guduudan yahay, malaaygeena qudaarta aan ka sameeyeyna sidoo kale waa kaasa. muuqaalkeeda aad iyo aad ayuu qurux badan yahay. waxaa rajeynayaa inaad ka hesheen sida aniga uga helay oo kale. aniga badanaa waxaan jeclahay ceeshka inaan ku sameysto malaayga aad iyo aad ayaan ugu jeclahay ceeshka. moos iyo liinna kama marna ceeshkeena, anaga haddaa soomaalinahay waa sidaas. waxaan rabaa inaan idin tuso waxyaabihi aan ka sameeyey ceeshkeena. ceeshka waxyaabaha ka sameeyey waxaa kamid ah ukun hal xabo, sixin iyo saliid yar aan isku soo qasay, fixiso oo qaando ah iyo sidoo kale qaando yar oo ah carfiso ama faniilo, cusbo yar, caano booro 2 qaando, 3 qaando sokor ah iyo hal galaas iyo haaf yar oo bur ah oo ugu talagalay inaan ceeshkeena aan ka sameeyo. marka run ahaantii waxyaabahan dhan waxay siinayaan caraf iyo dhadhan wanaagsan, intadoodana kalama dhacaan oo muhiim ayay u yihiin. haddaad doonto waa iska dayn kartaa carfisada, laakiin aniga aad iyo aad u jeclahay. waxaan rabaa in hadda qaso ceeshkeena. sida ujeedaan waxaa ku dara fixisadii galaaskaas iyo haaf yar oo bur ahna waaye burka aan ka sameynayo. sidoo kale waxyaabaha aan ka sameynayo waxaa kamid ah ceeshkeena oo aanan innaba aan caadi ahaynin oo caraf ii siinaa faniilada ama sida u taqaana carfisada oo booska heelka oo kale u taagan, cusbo yar oo aanan badnaynin. sidoo kale waxyaabaha aan ka sameynayo waxaa kamid ah oo aad muhiim u ah ukuntii, caano boorihii, sokortii, intaba muhiim waaye. caano boorahan dhadhan wanaagsan ayay kuu siinayaan wax walbo. sida ujeedaan caano boorihii ayaa ku daray. sidoo kale waxaa rabaa hadeer inaan ku daro sokorteeni iyo sidoo kale ukuntii oo ayadana waxaa waaye dhadhan wanaagsan ii siinayso ceeshkeena. marka qaandadaas ayaana ku cabiray. sokorta 3 qaando waaye, burkana qaandadaas ayaa ku cabiray. caano booraha 2 qaando waaye. ukuntan waa hal xabo, tanna waxaa waaye saliidii iyo sixintii aan isku soo qasa waaye oo u dhiganta 2 qaando. ani sixinta mar walba waa isticmaalaa, siiba sixinta lo'da. waa kaasa ukuntii ayadan hal xabo ayaa ku daraya. haddaa rabto 2 xabo 3 xabo oo ku darsan kartaa, hadba adiga ayay kugu xiran tahay. waxyaabaha aan ku qasaayo ceeshkeena waxaa kamid ah biyo diiran, waayo biyaha diiran mar walba waxay ii siinayaan inuu isdhexgalo. gacanta soo dhaqo sida ujeedaan biyihiina waa ku daray. waxaan rabaa inaan qaso ama aan xasho. waa inaa si fiican u xashtaa markii aa bur qasaysid oo kale, maxaa yeelay burka waxaa la rabaa waxyaabihii aa ku dartay inay si fiican isku dhex galaan. sidoo kale waxaa waaye maadaama aa fidinayo ceeshka, yacni waxaa muhiima in wax walbo ay si fiican isku dhex galeen, waayo waan yaro adkeenayaa burka. markaan qasa kadib ayaa isku soo laabanaynaa. sida ujeedaan asxaabta qaaliga ceeshkii waa soo qasay oo yacni waa diyaar. marka waxaa rabaa inaa uu sugo inta uu kasoo kacayo. sida ujeedaan soo yaro adkeeyey. waxaa rabaa bac inaa ku daboolo si aan u yaro huuriyo. sidoo kale dabool ayaa sii saaranaya. hadda ceeshkeen wuxuu kusoo baxaya ceesh qurux badan oo guduude hadhoodii, maxaa yeelay wuu iisii kacaya intadan aan qudaarta iyo waxaas aan kasii sameysanayo. marka waa kaa sida ujeedaan halkan waxaa iigu diyaarsan qudaartii aan ugu talagalay inaan ka sameeyo malaaygeena. sida ujeedaan waxyaabo badan ayaa halkan iigu diyaarsan oo kala duwan oo qudradan ugu talagalay malaayga. waxaa kamid ah tuun tuman, sidoo kale cusbo yar oo shiidan iyo kabsar tuman, baradho jarjaran oo aan soo diyaariyey, kabsartii oo aan soo jarjaray. kabsarta iyo caraf ayay ii siinaysaa. mar walba waxaa jeclahay inaan isticmaalo baamiye asagana sidoo kale iyo basal. barbarooni ayaan ka marneynin oo gadaal looga carfinayo. basashan marka hore waa shiilaya, wax yarna gadaal ayaa uga daraya. marka basasha 2 ayaa kala dhigay, mid yar ayaa reebtay oo gadaal uga daro. jabjube ah ayaa halkaas iigu jiro. waxaa kale oo ii diyaarsan oo waxaa waaye aad muhiim u ah yaanyadeena oo aan soo shiiday. waxaa kaloo ku daraya shiishiid oo guduud uga dhigayo. run ahaantii ani shiishiidka badanaa waa isticmaalaa. halkan waxaa iigu jiro gasici malaayga oo aan rabo inaan ka sameeyo. malaaygeena qudrada lahaa ugu talagalay inaa ceeshka ku cuno. marka waa ka malaayga waxaa waaye gasac waaye. malaayganeetine badanaa waa
isticmaalaa. Sidoo kale malaay nooc kale ayaa jiro oo aan isticmaalo haddii ahaan lahayd oo marka iyo hibo midka ay ku qoran tahay, iyo sidoo kale malaayga suugada leh ayaa badanaa isticmaalaa. Malaaygaasna waxaa waaye uma baahno qudaar iyo waxyaaba inaa ku darto. Marka hadda laakiin maadaama baasta aan sameynin oo ceesh aan sameynayo, qudaarta muhiim waaye. Ceeshka badanaa maraq ayaa lagu isticmaalaa, laakiin aniga suuga malaay ayaa ku isticmaalaya oo aad u jecelahay. Saliid ayaa halkaas iigu diyaarsan, basasha ayaan ku shubaaya. Saliid sidoo kale dabka ayay ii saaran tahay oo shoolada. Basasha waxaa rabaa inaan ka dhigo midab brown ah. Badanaa ani markaa basasha saliida yacni aan ku daro ma jeceli iyadoo cadcad inaan ku shubo waxyaabaha kale, laakiin waxaan jeclahay inaan brown aan ka dhigo midabka brownka ah. Aad iyo aad ayuu yacni u fiican yahay. Tuuntana waan ku shiilaya, sida ujeedaan tuuntii tuneed ayaan ku daray. Marka intaan brown aan ka dhigo kadib ayaa waxaa ku daraaya baamiyihii, kadibna waxaa ku daraaya yaanyadii midkaaga hor dhacayo. Basasha marka hore waa inay brown inoo noqotaa, waa sugeynaa. Sida ujeedaan wax yar kadib way yacni way isbedeshay basasheeni. Marka ilaa xoogaa ay u sugeynaa inta ay midabka rasmiga ka noqonayso isku soo laabaneynaa. Waa soo laabtay asxaabta qaaliga. Basashii waxaa kasoo dhigay brown ayaa kasoo dhigay, sida aan rabay ayay taagan tahay. Marka baamiyi ayaa ku shubay oo ii jarjarnaa, asna waa ii diyaarsanaa. Baamiyi ayaa korka uga shubay. Baamiyahaneet waxaa waa isdhex gelinayaa, si fiican ayaan isku dhex gelinayaa. Baamiyaha wuxuu ii siinayaa yacni inuu suugada ay noqoto mid oo iswadato, maadaama suuga malaay aan sameynayo. Badanaa ceeshka maraqa lagu sameystaa, laakiin ani suuga malaay ayay iiga dhigan tahay. Aad iyo aadna waa ugu jeclahay markii ceeshka malaayga oo qudaarta leh lagu cunaayo. Idinkan waxaan rajeynaa inaad ka heli doontaan qaabka aan ugu diyaariyay malaayga ceeshkeena. Aad iyo aadna ula dhici doontaan. Marka cusbo yar ayaa ku daray oo shiidan, cusbadii hadaaya inoo diyaarsaneed. Cusbadana waxay ii siinaysaa dhadhan ayay ii siinaysaa. Sidoo kale jubbaha kama marno asagana, laakiin cusbada waxaa mar walba waa isticmaalaa. Yaanyadii aan ugu talagalay inaan ku daro waxaa waa shiishiida ayaa marka hore ku qasaaya, waa isdhex gelinaya. Markii yacni labadaas ay isdhex galaan kadib hal mar ayaa ku shubaaya. Yaanyada ayadana waxaa waaye waxay kaaga dhigaysaa maasha Allah dhadhan wanaagsan. Malaaygaaniita hadaa rabto baasto waa ku cuni kartaa, hadaa rabto wax walbo adiga markaas haysato waa ku cuni kartaa. Marka hadda waa kaas yaanyadii waa ku daray, basashii iyo baamiyihii iyo cusbadii iyo wixii inoo diyaarsanaa. Waxaa rabaa marka inaan u yaro sugo yaanyadan inta ay ka karayso, laakiinse ka hor waxaa rabaa inaan ku daro kabsar ayaa rabaa inaan ku daro. Kabsartan waxaa waa caraf gooni ah ayay ii siinaysaa, waayo kabsarta waxaa lagama maarmaan waaye wax walba markaas aad sameynaysid. Anina aad iyo aad ayaa u jeclahay kabsarta, mar kasta waan isticmaalaa. Jubbihi sidoo kale waa ku daraaya oo haafka ahaa, dhanaan badan ma rabo. Cusbo yar iyo jubbo yar ayaa ku daray oo jab ah. Dhanaanka badanaa ma jecli, maadaama malaayga uu yara dhanaan leeyahay asagana. Suugada waxaa waaye dhanaan zaa'id ah looma rabo. Marka malaaygeena waxaa waaye inuu kusoo baxaa rabaa malaay maasha Allah oo dhadhan wanaagsan. Marka waa u sugeynaa wax yar kadib waa isku soo laabaneynaa. Waa soo laabtay suugadii way kartay, laakiin waa sii daboolayaa. Intaasna waxaan sii fidsanaa ceeshkii ayaa ku laabaneynaa. Wax badan ayaa u dhiman suugadeen intay ka adkaanayso. Ceeshka ayaa aadaynaa. Waa kaa ceeshka ayaa rabaa inaad diyaariyo, bacdi ayaa ka qaadaya. Sida ujeedaan ceeshkeeni wuu soo yara kacay, maadaama fixiso ayaa ku jirto. Waa ujeedaan suuf ayuu noqday ceeshka. Markuu sidan oo kale suuf oo u yahayne waa ka guduud ayuu noqonaya. Marka waa soo kuuskuusa 5 xabo ayaa ka dhigay ceeshkan. 5 xabo rabaa inaan ka sameeyo. Qiyaas ahaan galaas iyo haaf bur ayuu ahaa markii horeetood. Waxyaabo badan ayaan ku daray inaa qaybta hore muuqaalka daawateena rajeynaya. Waa ka bur yar ayaa ku shubay halkii aan rabay inaan ku fidiyo. Xabad ugu horeysa idin tusinaya, inta kalena isla sidaas ayaa u fidinaya. Waaweyn zaa'id kama dhigaya, yar zaa'id kama dhigaya, dhexdhexaad ayaa ka dhigaya. Sida sambuuska loo fidiyo oo kale ayaa u fidinaysaa, wax mushkil ma laha, ama sida sabaayada oo kale. Markaas fidiska ayaa ku bilaabay, laakiin waa inaa qiyaas uu ku lahaadaa markaasitii oo yacni uu dhaxda culays yar uu ka lahaado oo noqon qafiif uusan ka noqonin. Markii aan soo fidiyo ceeshka kadib ayaa isku soo laabaneynaa asxaabta qaaliga.
asxaabta qaaliga waa ka ceeshkii waa soo fidiyey suuf waaye sida ujeedaan waana isu soo dul saaray 5 xabo ayaan soo fidiyey sida hore ugu aragteenba 5 xabo maadaama aan ka dhigayo ceeshka marka waa ka in xarjeenaa inaa keeshin qaabka u fidiyey intii yacni aniga awoodeeda waa ku dadaalina isla sima marka saxan ayaa ku soo ritay bac ayaa ku daboolaya si uu si yara huuro marka waa ka bacdi ayaa saaray sida ujeedaanba waxaa rabaa in inta yacni suugada ka dhameystiranayo oo malaayga oo iisii waxeysmo marka waa ka suugadeena kusoo laabtay sida ujeedaan way soo adkaatay oo yacni biyihii inta badan way gursatay qaleel camal ayay noqotay markaan waxaan rabaa inaa yacni baradhadii aan kusii daro si aan baradhada ugu shiilo kadibna malaayga ayaa kusii daranaya waa ka baradhadii ayaa ku daray marka baradhada aad iyo aad ayaa usoo yaryareeyey sida ujeedaanba mana rabo inaa baradhada bislayaan ma jecli baradhada oo biseelka zaa'idka laga dhigayo marka si fiican ayaa isku dhex gelinaya baradhadii iyo waxyaabihii kale aan ka sameyneynay malaaygeena ugu talagalnay inaan ku cunno ceeshka run ahaantii baradhada ma ka dhigayo inay iga adeera jilacdo waxaa rabaa inay yara dhexdhexaad ahaato marka waa daboolaya waxyarkii dibna waa isku soo laabaneyna asxaabta qaaliga waa soo laabtay baradhada waxyar waqti ayaa siiyey waxaana rabaa inaan ku daro malaayga inaan ku daro ayaa rabaa markaaneti malaayga ii diyaarsanaa waxaa waa gasac malaay ayuu ahaa hadda idin xasuusiyo marka waa kaas waa ku daray kabsar yar aa korka uga daraya ugu talagalay inaan ku carfiyo kabsarta horena waa aniga soo tumay ku daran yaanyada markii aan kooda hor ku daraayay marka hadda suugo waaye waxaa sameynayo suugo malaay waaye ceesh waa ku cuni kartaa baastana waa ku cuni kartaa marka aniga run ahaantii aad u jeclahay malaayga inaan ceeshka ku cuno marka waxaan rajeynaya idinkan inay ka hesheen runaantii qaabka u diyaariyey marka waa ka kabsartiina waa ku daray marka wax yar ayaa waqti siineen waa soo laabtay asxaabteeda qaaliga sida ujeedaan suuga malaaygeeniina waxaa dareemaya inay tahay diyaar oo waxyar kaliya inay u harsan yihiin in suuga malaayga ay bislaatay waxaa ku dareemaysaa markii saliidda uu kasoo yaro kormaro oo waxaa yacni tahay in biyihii dhan uu ka baxay oo saliid kaliya ee halkaas kusoo hartay anina saliid badan waxaa waaye marka horeba kuma aanan shubin maadaama waxaan sameynayo uu yahay suuga malaay oo aan ugu talagal inaa ceesh ku cuno inuu qaleel iyo ahaato ayaa jeclaystay maxaa yeelay ceeshkaba waxa uu leeyahay saliid iyo sixin aan marka hore ku qasay iyo mid aan ku dubay marka saliidda badanna caafimaadka uma wanaagsana sidaas daraadeed ayaa saliidda iska yareeyay baradhadeenna ujeedaa in xitaa qaandada aysan ka dhex gudbi karin sidaasna waxaa ku dareemaysaa in baradhada ay yara adag tahay marka waa daboolaya waxyar kadib ayaana isku soo laabaneynaa daboolka ayaa sii saaraa wax yar ayaa u dhiman asxaabteeda waa soo laabtay dhammaan waqtigii aan ugu talagalay wuu qaatay malaayga marka waa ka asxaabteeda qaaliga wax u dhiman habeeraatee ma jirto waan soo diyaariyay basashii iyo barbaroonigii ii diyaarsanaa ayaa korka uga shubaya si qurux ay ii siiso basash iyo barbaroonigana maaha inaad dabka inta ay saaran yihiin aa ku darto haddii kale way kaa jilcaayaan anigana ma jecli inay iga noqdaan jileec marka waxaa rajeynayaa inaad ka heshaan midna waa inaa xasuusnaataa in markii aa korka uga darto basasha iyo barbarooniga uu kuu siinayo qurux ceeshka ayaa kusoo laaban asxaabta qaaliga waxaa rabaa inaan dubo marka hore bacda ayaa ka fiiqaya ceeshkeena wuxuu ka kooban yahay 5 xabo sida hore u ogeedeenba si qurxanna waa uu kusoo baxay oo suuf ah waayo bac ayaa kusii yara hooriyey birtaawadii ayaa dabka soo saartay aadna waa u gaabiyey birtaawadana waxaa soo mariyey saliid yar oo ugu talagalay ceeshka inaa ku dubo oo aana gaduud uga dhigo marka ceeshka aad rabto inuu gaduud kuu noqdo waa inaa saliid yar ku dubtaa saliid la-aanna waa dubi kartaa yacni birtaawada inaad dabka ka gaabisana faa'iidada ay leedahay waxaa ka mid a in ceeshka uuna madoobaad kaa noqonin dhexda uusan ciiriin kaa noqonin haddii aad dabka u gaabisana hoosna gaduud ayuu ka noqonaya korna gaduud dhexdana biseel ayuu ka noqonaya marka waa ka xabadii ugu horeysay ceeshka ayaa bilaabay inaa sameeyo asxaabta qaaliga hoosna gaduud ayaa ka dhigay waxaa rabaa labada dhinac inaa sidaas oo kale gaduud uga dhigo labada dhinac bay isku ka ekaadaan korna saliid ayaa uga daray waayo si dhanka kalena uu gaduud iigu noqdo waa inaa saliid ayadan aan kor uga shubaa sida ogtihiinba asxaabta qaaliga waxaa waaye ceeshka labada dhinac markuu gaduud ka yahay aadna uu qurux badan yahay aadna uu dhadhan wanaagsan yahay mar walba waxaa ku dadaashaa dabka inaa iska gaabisid
saliidana waa anigii la simay oo yacni si fiican ula simay. Marka waxaa waaye dhanka hoosena maadaama gaduud uu ka noqday, dhanka korena aan saliidda uga shubay. Kaliya waxaa inoo hartay inaan gedino si yacni dhanka kale aan gaduud uga dhigno. Hadeerna waan gedinayaa, waa kaa waan gediyey. Dhanka hoose waa aragteen sida wacan uu gaduud u noqday maasha Allah. Dhanka kalena sidaas ayaa gaduud uga soo dhigaya asxaabta qaaliga. waan idin tusinayaa gaduud waaye, marka waan gedinayaa. maasha Allah diyaar waaye. xabada ugu horeysa ceeshka saxanka ayaan soo saarayaa. waa anigii saxanka soo saaray, qurux ayay kusoo baxday. birtaawada ayaa kusoo laabtay, saliid ayaana ku shubay si xabada kale aa u saaro oo aan uga dhigo ayadana sidaan xabadan oo kusoo saaray oo kale. mar waliba waa inaa sidaan warwareejisaa si yacni dabka hal dhinac oo keliya uuna uga qabsanin ceeshka oo geesaha dhan uu gaaro. hoosna gaduud ayuu kasoo bilaabay inuu noqdo, waxyar ayaa dareemayaa inay u dhiman tahay, laakiinse gaduudkii la rabay ayuu noqday maasha Allah. asxaabta qaar mar walba waa inaa sidaas u sameysaan, ceeshka dhankaas u wareejisaan. dhanka korena saliid ayaa uga shubay. waa aniga idiin sheegay saliidda had walbo waxa ay siinaysaa inuu ceeshkeyga uu noqdo gaduud inuu kusoo baxo. waana gedinayaa. xabadan kale ayadana waa diyaar maasha Allah. dhanka hoose ayaan gaduud ka dhigayaa. muhiimada mid walba idin tusinaya waxay tahay inaa mid ula socotaan qaabka aan u sameynayo ceeshka. marka waa kaa waan ka saaray, saxanka ayaan saaray, waayo dhanka kale gaduud ayay ka noqotay. birtaawada ayaa kusoo laabtay, saliid ayaa ku shubay, xabadii saddexaad ayaana soo saaray. waxaa rajeynayaa ceeshka qaabkii aan u sameeyey inaa mid aad uga hesheen, aadna uga faa'iideen. marka waa kaa mar walban sidaas inaa u warwareejisid muhiim waaye, maadaama dabka uu gaabsan yahay hal meelna uu ku aadan yahay, si halkaas meel oo keliya ayna u noqonin biseel oo afarta dhinac dhan uu gaduud uga noqdo. saliidana waa lagama maarmaan si gaduud zaaid aa uga dhigto, labada dhinacna gaduud ay kusoo baxaan, ceeshkaagana uu noqdo ceesh lala dhaco. marka waa kaa xabadii saddexaadna waan gaduudiyey, waana kasoo saaraya, saxanka ayaana saaraya. waxa kale ii hartay waxa ay tahay 2 xabo oo ceeshkeena ah. marka 2 xabo ceeshkeena intaa ka dhamaystirayna waa isku soo laabaneynaa. soo laabtay asxaabta qaaliga. xabada ugu dambeysay ee ceeshka ayaa ku jirto, sida u jeedaan dhammaantooda gaduud ayaa ka dhigay. waxaa rajeynayaa inaa ka hadasheen sida aan u sameeyey. waa kaa xabadii dambe ee shanaad ee ceeshkeeni ayaa saxanka soo saaray maasha Allah. aad iyo aad ayaa ula dhacay. idinkan waxaa rajeynayaa inaa ka heshaan ceeshka qaabka aa gaduud uga dhigay, aadna la dhacdeen. marka waa kaa ceeshkeen dhammaantiis waa inoo dhammaystiran yahay. dhanka kale malaaygeeniina waa diyaar, sidoo kale ceeshkeena labada dhinac ayuu gaduud ka yahay, sida ujeedaanba horeyna usoo aragteen intii aan dubaayey. ceeshka waxaa waaye dhexdana biseel ayuu ka yahay maasha Allah. shantooda xabana waa isla mid oo yacni oo aad iyo aad ayay gaduud u yihiin. marka asxaabta qaaliga waxaa waaye carafta ayaa usii dheer oo waxaa waaye inaba hana laga sheekeyn karin. cunto haddii caraf beeso qurux badan tahay, dhadhan wanaagsan tahay, intaba la iskuma helo. waa 3 shay ee cuntada laga fiiriyo. marka dhanka kalena malaayga waa kaasa, asagana gaduud waaye, aad iyo aadna usoo carfaaya, aad iyo aadna u qurux badan yahay. cuntada qaabka loo soo bandhigayo, qaabka loo karinayo waxaa la rabaa inay isla haato oo soo bandhigitaanka uu noqdo wax yacni indhaha dadka soo jiidanayo. laakiin mar walba anaga haddii aan nahay Soomaalilin iyo moos waxaa waaye kama tagno. marka ceeshkeeni iyo malaaygeeni halkan ayaa kusoo gabagabeynaya. waa ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka.